halkani waa Balatul Amiin waxa ku nool in ka badan 3500 oo qof qoysaskani waxa ay u badan yihiin carruur iyo waayeelo waxa ay wajahayaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah waxaana ay ku nool yihiin guryo ka samaysan baca iyo cooshado waxaana ay codsanayaan in laga caawiyo bacaha laga galo roobka sidoo kale waxay codsanayaan dhismaha musqulo ay galaan maadaama deegaanka uusan lahayn wax musqulo ah gudoomiyaha tuuladan mar aan wareystay ayaa waxa uu ii sheegay in ay adag tahay nolosha halkani roobka sayid walluhu sida Allah buu gudawmana dadka badan dalaaljiifu roobka banaanka ayaa ardayni dhoohay arday eeda ka baahan dad arday gargaar iyo gaashan walaaltimo iyo walkasta eeda ka baahana walaala marday hadda waldin qobada eeda yaan fadaan hadii la helo waa boqolkiiba eedan mahadsan eliyaan eedan rafaasna sidoo kale bulshada deegaanka ayaa ka warbixiyay xaaladaha noloshooda boqol waatay qoyskaada yaa shaqay ana oo waayeel ah hadda bood balash ka rahayo kardhigay waa rafaadi maalintii aad hato guriga soo istaagasay إنك استأسي الحمد لله هي أنا نقولت هي قربان الحكاية إلما إسلام بها هي أنا قلت له الحمد لله الله إلهي أنكم هذين أنكم شوكين ما يفضان إني اسم النقابة إلهي هو النقابة إني اسم النقابة هذا فضان وتعملت قوسك يا بير دارجات سورنيك مسؤول قضاء بيرشي الله بيلا رود مسؤول قضاء مالك مسؤول شيء لا تفسلك إراه ولا صوب البلد حكم وداو هذا هو كساس كنون أبو معه محل قبض ملها قف قرية صوب قف جريال قرض وصودا جرود وصاحق مالن صاهل مالن صواي أن كجوجنا إني أقلنا لصيو واحد كستان أبانا مسؤولنا لصيو جريال نول لسواربني أتان إلين halkan jiddan waa Balatul Amiin waxa ku yaala duradka degmada Barada Xawo dadka aad arkaysaan ma haystaan riyad waxay ku nool yihiin qoshadii baa ka soo jeedaan Awiis Abdi Maxamed Somali News TV